dumar badan marka uu qof noloshooda ku soo biiro ama xiriir u soo bandhigto ayaa sameeyo talaabooyin qofka dareensiin karta caajisnimo iyo xiiso dhac, taasoo ugu dambeyntiina horseedi karta inuusan ku sii xiisayn ama uu kaa tago. haddii aad rabto inaad yeelato xiriir wanaagsan oo meel fiican aad la rajaynayso, waxaa ku habboon inaad qaado talaabooyinkan. ragguna aad ay u xiiseynayaan kuwani. ma hubo dhammaantiin muuqaalka inaad like garayn doontaan, laakiin waxaan kalsooni ku qabaa inaan wax badan idin faa'iideyn doono. sidaas darteed muuqaalka like gareeya, sidoo kalena ku soo biir kanaalka, taasi wax badan ayay iga caawin doontaa. Number 1, waxaa uga sheekeen noloshaada gaarka ah. bini'aadam oo dhan waxay leeyihiin nolol iyaga gaar u ah, haddii ay ahaan lahayd midda qoyskooda, habka ay u nool yihiin, dhaqaalahooda iyo rutiinkooda maalinlaha ah. nimanku waxay inta badan xoogga saaraan marka ay haweeney bartaan nolosheeda gaarka ah, sida inay lacag leedahay, inay tahay qof ladan, inay tahay qof qurux badan, cod macaanideeda iyo wixii la mid ah. balse waxyaabahaasoo dhan qofkii hela wuxuu isu dili karaa oo ku dareemi karaa xiiso dhac. taasna maaha way wanaagsan. noloshaada adiga ayay gaar ku tahay, iyaguna xaq uma lahaan inay ogaadaan until ay adiga kaa bartaan oo ay si fiican kuu fahmaan. inta ay iyagu raadinta ku jiraan oo ay rabaan inay ogaadaan noloshaada gaarka ah, ayaad adiguna jaanis iyo awoodba u heli kartaa in ninku kaa helo ama uu ku jeclaado, jacayl laba uu kuu qaado, markaana uu xiiso u arkin inuu ogaado noloshaada gaarka ah. taas markay dhacdo oo uu ku jeclaado xitaa noloshaada dabaqada hoose haddii ay tahay, qofku ma awoodi karo inuu kaa tago, ma awoodi doono inuu meel cidlaha kaaga dhaqaaqo. 2, adiga ha xiisayn. wax kastoo cusub waxaan jecelnahay inaan waqti badan siino ilaa aan dhibsanno oo aan ka caajisno. waxaa laga yaabaa inaad baahi badan u qabto inaad hesho laptop, waad habeenii maalin aad ku fikirayso helidiisa. xitaa markaad hesho farxad darteed, waxaa dhici karta inuu ku dhafriyo habeenka. laakiin after weeks ka bacdi maxaa dhaca mataqaanaa? waxaa laga yaabaa maalmo inuu dansan yahay laptopkaas oo aadan shidin. wax walba markay cusub yihiin way macaan yihiin, waana loo wada baahan yahay. rag iyo dumar ayaana taas ka wada siman, laakiin muddo kadib wuu xiiso dhacaa. adiguna ha samayn sidaas. qofka tus inaad ka maaranto waqtiyada qaar, marna inaad u baahan tahay, markaana awood waxaad u yeelan doontaa inuu kaasii helo oo xiiso badan uu dareemo. dhulka dhig kuma lihi, no, taas way fiican maahan. markuu kula soo hadlo la xiriir wanaagsan, hadal wanaagsan la sameey. marka uu si niyad sami ah wax kugu soo bandhigto, siday kula tahay ugu jawaab, laakiin adiga ilaa xad control u samee baahidaas. 3, ruuliskaaga nolosha bar. marka horeyba waa inaad yeelato ruulis kuwaasoo ku hagaya adiga. sharciyadaasi waxay awoodi karaan inaad qofka control u sameyso oo uu awoodo in waqtiyada qaar oo keliya ku soo raadiyo, inta kalena uu kaasii fakaro. ruulisyada qaar waxay awoodi karaan qofku inuu kugula dhaqmo markaad u sheegto kadib. tusaale ahaan, aniga sharciyadayda waxaa ka mid ah inaan qadka ku dhafrin habeenkii. waxaad samaysataa sharciyo adiga ku gaara, kadibna mid ugu sheeg sharciyadaas. hubaal way tixgelin doonaan, laakiin adiga ha noqon qof sharcigaas ku ciyaara oo burburiya. sharcigaaguna waa inuu noqdo mid noloshaada ku tacalluqa. 4, dabcan marka uu kugu soo biirayo wiil, wuxuu kaa codsanayaa sabir iyo soo dir. taasi waa dabiici, waana ogahay, laakiin gabdho badan ayaa sameeya sabir badan in qofku diraan. laakiin aniga sharcigaas waan ka soo horjeedaa. hal xabo is enough, wuu ku filan yahay hal xabo. waayo ninku wuxuu aad u raadiyaa wax isagu xiiso geliya, wax isagu u arko inay qiimo leeyihiin ayuu raadiyaa. sabir iyo soo dir ayaa lagu dhahay, markaasaa u dirtay sawiro gaaraya ilaa iyo 5 xabo. maxaa baqaar muu isku bedelay mobilkiisa? waxaas adiga ayay ku saameynaysaa. mararka qaar xitaa waxaa wanaagsan inaad dhahdo, adiga soo igama helin sawirkayga, intaas ayaaba kaaga filan. maxay tahay waxa kale oo dheer oo aad raadinayso? lama jeclo qof raqiis ah oo ay ku jirto baahi badan. hal xabo u dir, waxaadna u raacaysaa sawirka aan galay sanadkan, waa kaas. ha ka welwelin, sanadka soo socda mid kale ayaa igu leedahay insha Allah. 5, u muuqo gabar fani ah. dhibaato ma lahan, ceebna ma keenayso inaad noqoto kaftanley, qosol badan, sheekadeeduna aan lagu dareemin maraxnimo.
dhibaato ma keenayso inaad la gaftanto oo aad waqti qosolaawa siiso taasoo kordhinaysa inuu ku xiiseeyo oo uuna marna kugu dareemin caajis. Haweenku iyaga ayaa qofka ka dhigi karaa mid caajisnimo dareema, isla iyaga ayaana ka dhigi karaa mid aan caajisin. Why? Because ninku hadduu maanta oo dhan kaaga sheekeynayo sheeko fani ah adigana aadan u arkayn waxaas fani, hubaal wuxuu dareemayaa inaan sheekadiisu kugu socon adiga, meeshaasna uu ka qaado niyad jab. Adiga ayaa keenay caajiskaas uu dareemayo. Sidoo kale isla adiga ayaa ka dhigi karaa mid aan caajisin, waana inaad siiso waqti qosol iyo kaftan leh. Qodob runtii loo baahnaa inaan midka koowaad ka dhigo, balse aan u qiimeeyey inaan ka dhigo midkan, waana qodobka 6, inaad la saaxiibto. Runta ma kuu sheegaa? Saaxiibtinimada waa dareen aad u qurux badan, qofkuna aan fahmi karin marka uu ku jiro waqtigaas. Waa dareen qof walba inaga naga mid ah uu soo maray, laakiin hadda ku shalaynayaan maxaynu sideena isaga ahaan weynay. Haa, waa dareen cajiib ah, waa la kaftamaa, waxba lama kala qarsado oo wax kasta ayaa ka dhaxeeyo. Waana inaad la saaxiibi karto qofkaas, hadna ku dhahdo saaxiibow jacayl iyo ka helid dib noogu dhig, ma saaxiibi karnaa oo ma ila saaxiibaysaa. taas waxay jaanis ii siinaysaa inaan isfahanno oo aan si fiican kuu barta adiga. hadalkan qaarkeen laga yaabee inay si kale u fahmaan, laakiin dhabtu waxay tahay inaad ku dhaqaaqayso waddo saxan, waayo qof aadan aqoonin noloshiisa dhabta ma oran kartid soo dhawow. waa haddii aad rabto xiriir daacada guulaysta, waa in qofku la saaxiibta adiga. ma dhici kartaa mise aamini kartaa qof shalay kula soo hadlay aadan garanayn noloshiisa iyo xaqiiqadiisa inaad ku tiraahdo igu soo biir? ma ii jeceshahay? haa, aniga kaa daran. taas ma socon karto. jacaylna waxa u wanaagsan midka saaxiibtinimada ku bilowda. 7 ma ogoli. fikir ahaan iyo sharaf ahaan baa u isticmaal ereygaas ma ogoli. waayo aan midaa u leeyahay, waxay leeyihiin weji wanaagsan marka ay kugu soo biirayaan, waxaana iska kaa dhigayaan qof wax walba daacad ay ka tahay. waxaanu intaa u samaynayaa waa siduu ku heli lahaa wax kastoo adiga kugu saabsan. maya waa erey aad ku difaaci karto wax badan, sida naftaada, qoyskaaga iyo xitaa diintaada. u isticmaal maya si aad u caddayso wixii aadan ogolayn inaad diidan tahay oo aadan raali ka ahayn. haa badan ma keento jacayl dhisan. mararka qaar waa inaad fikradahaaga qaar aad ku dhahdo adeer la laabo waxaas. 8 koolka badan yarey. laakiin taas macnaheedu ma aan hala hadlin ama is adkeey isaguna ku adkeey. maya, koolku wuxuu qayb weyn oo muhiima ka qaataa soo jiidashada, laakiin koolkan waqtiga badan la saarnaanayo iyadoo lagu hadlayn waxan xor leh, ugu dambeyn waa lagu caajisaa. markaa si aysan taasu dhicin, isagoo u baahan ku dheh waqtiga uu dhammaaday, qofka ha kuu xiiso adiga. 9 isbeddel sameey oo dabeecadahaaga ha noqdaan kuwa la fahmi karin. maalmo qaar u wanaagsanow oo u muuji wax kastoo wanaagsanaana, halka maalmaha qaarna kaga yaabay dabeecad iska yara kulul. hadduu dhab ahaanti ku doonayo waxaas yaryar waxba uma arkaayo, wuu ku xiisi doonaa, markaasna wuxuu mar walba ku dhahayaa laguma fahmi karo. adigana taas ayaaba kaga yaabinaysaa oo fikirkiisa kaga qaadanaysaa. nin jacaylkiisu waa intuu kaa fikirayo, yacni markastuu kaa fikirayo jacaylka ayaa ku badanayo. nin jacaylkiisu waa fikirkiisa. qodobka ugu dambeeya ayaan isla soo gaarinay. muuqaalka like sidoo kalena noogu soo biir. mahadsanid. 10 qodobkan kuma qasbanid, laakiin way wanaagsan tahay. u hadiyaday shay uu ku sheegay inuu u baahnaan lahaa. haddii aad awoodo, markaad qofkan isfahantaan kadib oo aad isdhexgashaan, waxaad hadiyad uga dhigi kartaa shay uu markuu sheegay inuu rabi lahaa oo aad ugu baahan yahay. run ahaantii ficilkani wuxuu ka dhigi karaa mid ku jeclaan kara adiga, kuuna xiisayn kara adiga. waxaa laga yaabaa dad badan noloshiisa inay soo mareen, dhammaantood aad adiga uga qiimo badan tahay. sababtu waxay tahay waxaad siisay wax ay iyagu siin waayeen, waxaad u muujisay waxay iyagu u muujin waayeen. waa kalsooni ayaad maankiisa ku kasbatay adiga. muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay. I hope inaad ka heli doontaan. sidaas haddee tahay muuqaalka like sidoo kalena noogu soo biir haddii aad nagu cusub tahay. mahadsanid. intaynu muuqaalkeena xiga ku kulmi doono. nabadiin.